سلام كدب آديات بعد يكون مهندقينا أجيبتها سؤال جيبتين عود سجاني سو قد بني هاينا عود سجاني سو قد بني كل بعضه arrimo badan oo dalihayna ka wada hadalno nin kasto hadlayna runtii si wanaagsan ayuu hadlay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ajiibida soo ajiibteen iyo waqtiga soo ilaaliseen inta markaan ka gudbo sida madaxdii ugu horeysay ni sheegtay waxaan maanta u soconay maanta koo noomaha waxaan maanta u soconay gobolkii Awdal gaar ahaan degmadii Boorama markay gashay arrin nabadgelyo darro ah oo sida la sheegay ambaar inagu wada dhamaanteen haday degmo tahay haday gobol tahay iyo haday qaran tahayba in badanna madaxayga soo horeysay soo imaatay oo wasiirre iyo cid walba leh iyo janaal bale inaga soo horeeyeen oo muddo 2 bilood ku dhow la soo noqonayay laakiin hawsha si tartay oo si fidfiday hadalla runtii aad la qaadan kari waayay oo qaranka ambaar ku ah ay soo baxeen waxay noqotay in labadii gobol uu sareeyeen soo baxno xukuumaddu runtii hawshaasi waxay noqotay waxay qaadan weyday waxa runtii ay u dul qaadan kari weyday bay noqotay heer waxay la gaaray in la isku yimaado madaxtooyadii iyo labadii gol qaran iyo maxkamadii sare oo la yiraahdo wax meesha ka soo socday wax ka weynay galay hor la qabtay ilaa daba la qabto ma lehe hor waxna waa maxay meesha ka soo baxaya magaaladii Boorama ama gobolka Awdal runtii waxa noqotay markaan anagu labadii geeda bursaaka gobolka ugu sareeyay anagu gurmad ma hortanahay gurmadkaana waxa weeyaan waxaan u gurmanaynaa dadkayga binaadamka haday talada ka xumaato meel xun ku dhaca haday tabasho iyo wax maqan iyo waynu wada joognay waynu ka wada hadlay wayna kala wada hadhay wayna kala hadhin waqtiga la qoran badana wax dhamaadaan laakiin muhiimaddu waxa la isweydiinayaa ma xisaabtamaysan reer Awdal oo ma xisaabtatay ama reer Booramo waxaad maanta haysaan iyo koobka biyaha inta ku jirtay halka maraysa in inta yara dhiman loo daadiyo inta ka badnayd 180 kan nimcada la hayo ma xisaabtateen waxaad garateen inaad 180 kan haysiin 10 ama 20 dhiman u daadisaan taasi waxay noqotay mid aan la ka fadhi kari weynay mid ay ka aqbalaynana maaha nabadgelyadana la idin kama marti ahaa xukuumadda ayaa ka masuula marti idin kama dhintaas laakiin talay muskuleenahay sida wuxuu wanaajinaa muskuleenahay waa inta wanaag ka talnaysa laakiin xukuumadda ka masuula nabadgelyada oday reer u taliyo masuuli isaga sidii reerkiisu ku hagaag yaqaan xukuumadda iyo qarankuna isaga yaqaan sidii reer ku hagaag wadanka gobolka iyo degmada ku hagayaan la idinka aqbali maayo idinka yeeli mayno inaan halka jooga yaa soo la soo hadli kari weynay ama si kacay kari weynay ama aan qaban kari weynay wax la idinka yeelay maaha lacagna ku bixin mayno ninka hawshiisa qabsan kari waayay lacag la ku siiyay bari baa lacag la geeyaaba nasiib darro ku hada saadintu masiiba loo geeyaa masiibada Ilaahay baryada dad masiiba jeceshiin masiiba qaytana sidoo boqolaal qof bay istila dhibaato taala ma dhibaato loo geeyaa ma dhibaato Ilaahay noo keenay leedii war Ilaahay ka baqa waxa weeyaan waxaasi wax la suuraysan karo ama la aqbali karo ma waxa bari la geeyay ee lagu shubaay waa wax danta Soomaaliland ka maarmeyday oo madaxweyne kasto jooga ku qasbanaaday oo qaran ku qasbanaaday ilaa cigaal ilaa rayaale ilaa siiraay ilaa musabix waa wax danay biday wax la jecel yahay ma haday maanta sideena u dagaan waxa cid kuma shubtay lacag cid la ku dhacayso amni ku dhamaanaysa oo nan waliba horumar u taray
inankoodii maanta habsaamay ilmahoogii baa inankeetooda habsaamay nabadgelyo darre ku habsaameen siyaasado kale ku habsaameen waxay ku habsaameen laba darraacoga ku habsaameen intay Soomaaliya inta lahayn boolaalay ku habsaameen war uga ducaynayna iyagoo dhibaato haysta waa dhibta hore markuu gaan leeyahay war reer awdaadanahay waxa maanta ku dhisanay wixii resource ay keenaysa hay'adaha caalamiga keenayeen wuxuu ku horeeyaa galbeed ku horeeyay haday iskuul tahay haday caafimaad tahay haday biyo tahay ilaa tuulooyinkiina ma biyo toosh kala gabeeranayaan war ma sida doonaysa idinka dhib maxay tahay ugu biyo xawaan dilaan shalay soo xifray waxa la soo furay boon waxa la soo furay xariira waxa leeyahay tuulaad gobolka awdal jiray meel aan biyo lahayn maanta biyo nadiif laga cadbeeyo ma jiro laydinama qabadee laydinama qabo waxa weeyaan arinta nabadgelyada idinka bari maayo wixii taliyo tusaalana waa laga qaadanaya odayaasha maanta runtii deegaanka maartay degmada Buuro kamida qaybta bariga iyaga aad iyo aad baan runtii hambalyeynaya anaga warwarkanahay waxa yahay marka soo soconay laba mid waxay dagaalka inay nabad qaataan iyo saacada boqolka qof ee konton qof meel jooga qaranka maanta iska bixi karo qarankani afar iskaashi wala dubi kari waaye oo adogeedeen oo yab house laba sano jiray iyo shan iskaashi maanta cid iska celi kartaa ma jirto wala dhowraya dadkiisa dhimasho iyo dhiig ba ka laga wareegaya dad maqasheen ilaa iyo bari ilaa caare ma hadda qoniimo nagama wax ka naga tahay dadkiina iyo dhibkooda ku dheeraanay halkana boqol qof oo buur yar hor fadhiistay naguma qaadanayso sakiina naguma qaadanayso laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qofku binaanku shaydaanka wax kala soo waraa haday walaalahood caruurteena qaarkood ama odaysheena qaarkood si xun u fikireen intii ka badnayd baa tiri waxaan macquul maaha oo qabatay waana ku hambaliyay Sultaan Saleeman iyo odayshay iyo odayd wixii ka inay kala dawladda kala badbaadiyo dadkooda kala badbaadiyeen laakiin dawladdu nabadaad horta la sheego inaad fahamtaan weeyaan nabaddu bariyo kuma timaado hadii walaalku gal badiyo nabaddu ima weydo waxa ku imanaysaa xoog ku imanaysaa nabaddu adiyada waxa hubo loo sameystay waxa adiyada kharash loo geeyay ciidan loo geliyaa nabaddu markay ka fursan weydo wanaag iyo talada iyo tasliixda badiyo iyo wadahaalka hadii dhaaf weydo khatar ninku hadda uu gaaro markuu is gaaro inuu cunaha iska xiro xariga waa gacanta loo tagaya marka waxa leeyahay duqeyda galbeedka waxa weeyaan wixii macquul lama diidayo laakiin waxa idinka laga rabaa markaad hawsha dhameysaan idinkiina soo qabsataan waxaad rabtiin weydiiyaan anaga laakiin adoo inaka anagu nahay ee la sharfiyay ee tolku sharfiyay ee maartay wixii sidaa la sheegay على مساركيسي iyo sharaftiisii anoo madaxweyne qarana kii sharfiye ka koowaha maan diyaarada ku soo degay imaamada iyo koofiyada soo saaranaha wixii saddex lagu sharfiyay wina garmaray waad ogeeyeen markii hore markii uu soo dhawaatay ee caruurtii ka soo xirotay inuu ka diiday inuu cafiska qaato dadkiis ku soo noqdo suldaan iyo uqaasha kaleba waxa leeyahay qofka bini'aadamka hadduu soo taago qof madaxa waa si goynayna aad kama qaban kartid hadduu isagu soo taago oo qofku wanaagii diido waxay tagaysaa in laga badbaadiyo inta kale laga badbaadiyo 300 kun oo buuramaan ka dhageysan mayno in imaarteen lagu dul goolaftamo oo nabadgelyo laga abuuro oo dadka hadii in nolol tahay iyo hadii in wax noo taraso hay'adaha tahayba in ka dareeraan aqbal mayno mana rumaysan isuguna mayno waxbaynu wada leenahay isku dambanahay doontani xeer iyo marteen Soomaaliland iyo gobolka wadana wada leenahay nabadgelyaduna waa sala wada sheegano tafaasiisheeda iyo qiimaha ay leedahay iyo maanta horumarkay noo soo socda waxa dhameeyay gudoomiye xigeenka ay warway laakiin waxa ay sheegayaan golaha wasiirada wax laga baasgareeyay odayaalow waad ka yar idinku ma dhaqanka waxa moodaa dhaqanka Soomaaliya dhamaantii waad yar dhaafteen intii aad lahaydeen gaar ahaan salaadiinta ma uqaash gaar ahaan salaadiinta Soomaaliland xadka ilaahay way dhaafeen dulqaadashada ma loo dulqaaday nin dambe oo qaranka provocation ka sameeya qofka waxa loo ogol yahay inuu qaranka
wixii toosina u tilmaamo inuu maartay soo xataa inkastoo dee dhaqankuunu macaaradda dee xisbiyada ku shuqul lahayn haddana hadduu wax qaloo arko toosiinba lagu leeyahay laakiinse lagama aqbale maanta laga bilaabo ninkaa soo joogsada oo fidmo abuur iyo afqabyaaladeed iyo waa dagaalamaya haddama idhaahdo lagama aqbalayo imikaba inaa isku soo warwareegin ninkii maanta afka qaadaya iyo horin iyo colaad afka kaga hadlay afka hadlama gacan dawladdu go'aan bay ka qaateen bariya galbeed bushra joogo bariya galbeed waxa weeye sababtoo halkaan ku soconay dee waxa nabadii iyo wixii Soomaaliland lagu majeeranayay afkeenii baa dawlad mooday inuu wax ka fogeeyay saa darteed maanta looma dul qaadanayo walaa wariye walaa madax dhaqameed cidii dhaafsan xuduud soo dhaafta looma dul qaadan laakiin qofku waxa loo ogol yahay tilmaam iyo talo iyo tusaale loo bixiyo laakiin waan dagaalamayaa dambe ya saxaafadana waa wada hor joogtaan أنا سوكري ساتي واحد نجار هذيك أنا إن أنت ولا يسافر في سان لكن سأنت حلو ياك أنت وضك كعير سان لا يركع قبل مايو لا يركع قبل مايو وهم مسوق قبلينيها وحنو جامع سكوا قبصرنا إن ذلك كيني ذلك كي دقمدنا إنه تجينو وين خلاصنا نسكت دقينا الشركة وادو بدرنا كليجين لماها أقوياء كي والله شرنا haweenka la shirina dhalinyarta la shirina waxa weeyaan dhageysiga waa dhageysana waliba waan dhageysan jirnay intaas sare soo dhageysanayni inaan wixii aad tabanayseena maray nimaan oranin tabashadaas ma jirto maan nidhi inta aynu wada joognay sanadkii sagaal bay dhamaadeen anigu madaxweyne ku xigeen ahaan reer booramo maray wadalow wali markii maan nidhi waxba aad sheegaysi waa beentin maan nidhi waxa weeyaan laakiin waqti wuxuu baleeyahay توحي الله ما أنتم لما أظن بالنمانة لكن سوين واحد نقل من وحنا يسنا كبرنا أنت أنا يسنا إلى عشان أنا وك حكومة هان وحي إذا كحكرون إذا بقيلوا حمانة دي من أمريكا سيدي ده قاعد برافو قبرنا قاعد برافو قبرنا هذه يدل ما سنتين وحي المحوها من كره تجنو صار شكتين على شو نادعو وين وجونا ما كره تجنو هذا ولا يرجعنا الله بعيد صدق شيء بكرة تجينه إلا إنه كنت تعبانه أو إنه حلا إنه كسر إلنا مقالة اللي قبل كني وحي لو يقاني نبدي سلو يقاني لا كسر إلنا